Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka ka faras wanaagsan maalin ma gaartid, ninka ka beer wanaagsan sanad ma gaartid, ninka ka xaas wanaagsanna abidka ma gaartid. Aziis, marka caruurtu wadada ku garaacaan, dadka tuulada degan oo idilna ay dhibaateeyaan oo ciil ay ku dilaan, waalidkii iyo walaalihiina wax maciina uu ka waayo wuxuu u soo carari jiray faraskii uu saaxiibka la ahaa. Waxa uu aaminsan inuu yahay waxa kaliya ee dareensiin kara inuu yahay qof nool, ilaa uu ka helay macallinkii u fududeeyey in uu helo wax uu ku hadlo. Macallinkii dareensiiyey inuu yahay ruux nool oo caafimaad qaba, macallinkii u soo celiyey xornimadiisa uu tuulada kula noolaa. Aziis oo tuulada ku dhaxaysta farxadda dadnimadiisina u soo noqotay ayaa waxaa nasiibku ku saaciday inuu helo gabar loo guuriyey. inkastoo uu aad ugu rafaaday nolosha markii uu guursaday kadib, gabadhiina ay dhibaato fara badan heshay, haddana waxay u noqotay saaxiibka saxda ee nolosha. waxa uu helay qofkii ceelbixin lahaa, gaarsiin lahaa farxad iyo wanaag noloshiisa inta uga hartay. ku soo dhawow qisadii curyaankii la ciilay ee Aziis qaybteedii 3 oo aad kala socotaan kanaalka Cilmi Kororse. haddii uu kugu cusub yahay fadlan saar subscribe siina gaarsii asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. daawasho wacan. Aziis waxa uu fuliyey qorshihii uu siiyey macallinka ee ahaa in uu qoro warqad uu u sheegayo waalidkii waxa uu damacsan yahay. Aziis markii la waayey ee tuuladii guriga la isugu yimid, macallinkana uu iska dhigaya ruux aan ogeyn halkuu Aziis aaday, waxa uu bilaabay inuu akhriyo warqaddii uu qoray Aziis. waxa meesha fadhiya dhammaan dadka tuulada degan, yar iyo weyn, rag iyo dumar. warqaddu waxa ku qornaa sidan: hooyo iyo aabbo iyo dhammaan tuulada idil, waxaan wada fahmi karnaa in marka neefka xoolaha dhibaato loo geysto uu dareemo inaan la daynaynin oo dhibtii ku socoto, in uu bilaabo inuu isdifaaco ugu dambayntii, wax walba u soo dhowaadana uu dilo. dadku bini'aadamku oo caqliga Ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala iyaguna waa sidoo kale, laakiin iyaga maadaama ay caqli leeyihiin waxa ay isticmaalaan waxa ugu fudud ay dhibka kaga bixi karaan. curyaannimadan ma ahan wax aan aniga doortay, waa wax Ilaahay igu dhaliyey, idinkuna ay ahayd inay igu aqbashaan. waxaan ku soo barbaaray kuna soo weynaaday nolol aad u adag, waxaan ka liidanaa xoolaha. waxaa hortiinna igu garaaci jiray carruurtiinna, waxa ay ii geysan jireen dhibaato fara badan. ma jirin haba yaraatee qof idinka mid ah ee yidhi ha la daaya maskiinkan xanuunsan. waad qosli jirteen halkii ay ahayd inaad badbaadisaan. waxaad dhammaantiin ii diideen inaad ii aqoonsataan dadnimada Ilaahay i siiyey. waxaad dhammaantiin isku raacdeen in aan ahay ruux waalan anoo caafimaad qaba, inaan ahay ruux aan waxba tari karin oo curyaan ah, tuuladana dhibaato ku ah, istaahilo keliya in la caayo, la aflagaadeeyo, carruurta lagu diro, dhib loo geysto, aan noqdo qof nool oo lagu maadaysto. hooyo iyo aabbo, dhaqanka meesha ka jira tuulada dhammaanteen waan wada ognahay. xaqa guurka koowaad waxaa iska leh wiilka koowaad ee reerka. halkii aniga la ii dooni lahaa oo la ii qanci lahaa, xataa haddii la ii soo diido aan quusan lahaa, waxaad door bideen inaad iska kii ilowdaan liiskii aan ku jiran iga saartaan, walaalkay iga yar iyo kii ka sii yaraa aa u doontaan. waad ilowdeen dadnimadii aniga aan lahaa, waad tirtirteen xaqii la i siiyey iyo dhaqankii meesha ka jiray. waxaan dhammaantiin oo wada jira idinka codsanayaa inaad samaysaan hal shay. fadlan u yeera faraskii saaxiibkay ahaa, weyddiiya inta dhibaateed ii geysateen ee aan isaga u sheegay, weyddiiya inta jeer ee anuu ooynay intaan u tagay isaga i qanciyey, weyddiiya xanuunka nolosha aan soo maray isaga ila wadaagay. haddii uu diido inuu idiin jawaabo, weyddiiya macallinka. inta dhibaato ah ee aniga ku sugnaa ee intuu arkay iga reebay isaga weyddiiya. weyddiiya dhibka i haystay ee aan ku sugnaa iyo sida uu ila wadaagay. macallinka weyddiiya inta shay oo aniga ugu waaniyey iyo dhammaan dadka tuulada jooga inaysan i necbayn ay walaalahii yihiin oo ii muujiyey weyddiiya. inkastoo waxaasoo dhibaato ah
aniga aan ku noolaa oo intaasoo rafaada aan isaga jiray haddana weligay kuma fikirin inaan nafteyda dhibaato gaarsiiyo inaan waalidkay murjiyo in aan tuulada isaga cararo meel kale aan iska aado waxaan ogaa kuna qanacsanaa in aan ahay ruux curyaan ah sidaan u dhashay noloshanna wax uu ka beddeli kara aysan jirin dhibaatada iyo aflagaadada la igu hayay ee aan ku sugnaa waxa ay ahaayeen wax aan la qabsaday aniga muddana ku soo noolaa waxa ayna ka mid noqotay noloshayda laakiin markii noloshayda ay ku soo biirtay xaaskayga waxaa isbeddelay dhammaan dareenkayga oo idil waxaan u adkaysan waayay hooya iyo aabbayo dhammaan walaalaha meesha jooga aflagaadada loo geysanaya xaaskayga dhibaatada lagu haya xaaskayga oo aan mas-uul aniga ka ahay hooya iyo aabbo macallinkayga faraskayga waa afarta aan ugu jecelahay tuulada laakiin waan ku qasbanaad inaan idinka tago waxaa aad ii dhibtoon u adkaysan waayey dhibaatada lagu haya xaaskayga waan u adkaysan waayey in aan fiiriyo ilinta ka daadanaysa xaaskayga qalbigayga wuu isiin waayey murugta iyo hurdala'aanta ay ku sugan tahay xaaskayga waxaan go'aansaday hooyo aabbo macallin faraskayga in aan tuulada ka haajiro oo aan aado meel ay xaaskayga ku faraxsanaan karto waxa ay ii ballanqaaday inay ii noqon doonto hooyo aabbo macallin faras intaba ha murgina dhammaantiin waxaan heli doonaa nolol farxad leh ugu dambayn insha allah waxaan idinla wadaagi doonaa sida noloshayda noqoto qoraalaan idiin soo qori doonaa waadna ogaan doontaan halka aan ku dambeeyo waxaan rajaynaa inaan sabab u noqdo farxaddiinnoo idil casiis xaaskiisa oo ahayd gabar aad u karti badan waxa ay dhabarka u soo ridatay ninkeeda waxayna go'aan ku gaartay inay la aaddo meel uu isagana ku farxi karo iyadana farxad ka heli karto waxay had iyo goore ilaalin jirtay inaysan marnaba ka tegin ducadii ay hore u qaadatay waxa ay raalligelinaysay aabbaheed iyo waalidiinta dhashay casiis waxa ay go'aansatay inay la soo aaddo magaalada istanbuul habeenkii oo dhan waxa ay soo guureeyaanba tuulo weliba ay soo maraan waxay ugu dambayntii muddo dheer kadib soo gaarsiisay casiis oo curyaan ah magaalada istanbuul waxa ay ka istaageen meel gaar ah ma taqaano meel ay wax ka bilowdo qarash iyo hanti fara badan ay ku noolaadaanna ma haystaan wax ka soo horreeyo ay maciinsanayaanna ma jiro intii ay dhex socdeen magaalada dhexdeeda casiis waxa uu aqrinayay qoraallada derbiyada ku qoran waxa uu arkay warqad yar oo ay ku qoran tahay waxa loo baahan yahay oo la raadinayaa ruux wax karinta ku fiican xaaskiisa ayuu halkii u tilmaamay way tagtay nasiib wanaag waxa ay heshay inay halkaasi ka bilowdo cunno karinta inkastoo lagu yidhi muddo 7 maalmood ah wax qarasha naguma lihid waxaan tijaabin doonnaa karintaada xaaska casiis waxa ay ka codsatay ninkii iska lahaa maqaayadda in iyada iyo ninkeeda ay habeenkii meesha seexdaan ninku waxa uu ku yidhi haddii aadan wax qarash oo ilaalo ama waardiyanimo aadan iiga baahnayn seexda habeenkiina waxa ay seexdaan maqaayadda maalintiina cunnada halkaasay kaga nool yihiin casiisna meel laab ah ayuu maalintii oo dhan isaga jiraa isaga oo ilaalinaya inaan wax dhibaato ah isaga dartii ay xaaskiisa u soo gaarin muddo sannada kadib casiis oo iska hurda ayaa xaaskiisa toosisay waxay u sheegtay in uu bannaanku taagan yahay ruux in muddo ah raadinaya casiis markii uu soo baxay ee uu bannaanka yimid waa uu naxay waxaana indhihiisu ay celin waayeen ilinta waxaa bannaanka u taagan macallinkii qorshahan maanta ay ku sugan yihiin ka dambeeyey macallinka waxa uu u sheegay casiis in ay xaaskiisa la soo xiriirtay rabto in ay geyso meel isbitaal ah muddo sannada ay qarash ururinaysay lana daaweynayo macallinku waxa uu u sheegay inuu isagana haayo isbitaalkii lagu daweyn lahaa casiis waxaa u bilaabatay daweyntii 8 bil kadib waxaa lagu guulaystay in casiis uu noqdo ruux caadi u socon kara ruux si aayara u hadli kara wax warqad ah maanta wixii ka dambeeya u baahan yahayna aysan jirin waxa uu ka mid noqday dadka sida caadiga ah noloshooda u wata gabadhii wanaagsaneed ee intaanu wanaaga casiis u qabatay ee horumarka noloshiisa ka shaqaysay murugta iyo halista uu ku jirayna ka soo saartay weli ma ilaabin in ay jiraan dad iyada iyo casiisba ka fikiraya
waa waalidiintii dhalay. inkastoo Casiis yaraantiisii wax daryeel oo fiican uusan helin, haddana waxay u sheegtay inay yihiin waalid mar waliba xaq leh, walwalayaan oo fikirayaan, lana gaaray maanta in lagu noqdo tuuladii oo waalidkii laga soo farxiyaa. waxa ay ka codsatay macallinkii inuu caawiyo oo uu hago ilaa ay tuuladii ka tagaan. maalin maalmaha ka mid ah, goor subax ah ayaa waxaa tuuladii yimid gaari. dadkii tuulada joogay oo dhan ayaa isku soo baxay, iyaga oo wada taagan oo gaarigan iyo wuxuu yahay la yaaban ayaa waxaa ka soo degay macallinkii. waa la soo dhoweeyey, waa lagu wada farxay. macallinku waxa uu ku yidhi, bal fiiriya, maanta yaan idiin keenay. waa Casiis oo caafimaad Ilaahay siiyey. dhibaatadii iyo halista uu soo maray maanta Ilaahay ka dulqaaday. waxa uu watay xaaskiisii iyo carruur. waxa uu yimid hooyadii iyo aabbihii. way la hadleen. Casiis, adiga miyaa wiilkaygiiyow? waxa uu ku yidhi, haa aabbo, hooyo, waa Casiis. waa hadlaysaa Casiisow? haa, waan hadlayaa. waxa uu ku yidhi, hooyo iyo aabbo, maanta waxaan idinkugu imid 3 shay. waxaan idinkugu imid inaan maanta idin farxad geliyo oo aad aragtaan inaan caafimaad qabo sidiinoo kalena ahay. waxaan idinkugu imid inaan dhammaantiin idin wada cafiyo wixii dhibaataa ii geysateen. waxaan idinkugu imid inaan hooyo iyo aabbo idinka idiin sheega si gaar ah in aysan jirin haba yaraatee wax dhibaato ama murug aan idiin qaadin nolosheedii inta aan noolaa. una baahanahay maanta inaad i raacdaan oo nolosha fiican aan haysto igula noolaataan, weliba uu diyaar idiin yahay gurigii aad ku noolaan lahay maanta wixii ka dambeeya. curyaankii la ciilay ee Casiis ahaa maanta curyaan ma aha, wax ciil ahna kuma jiro. waxa uu farxadda la wadaagayaa hooyadii iyo aabbihii, waxuuna mas-uul ka noqday inay horumar gaaraan. ogow, waxaasoo dhan waxaa ka dambaysa gabadhii wanaagsaneed.